Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Idil ahaantiin baa meel kasto aad daafaha dunida naga daawanaysaan kuna soo dhawaada warkii dalka iyo caalamka oo idinkaga imanaya stuudiyaha TV-ga qaranka Soomaaliyeed ee magaalada London. Wararkana waxa soo jeedinaya aniga Cabdullaahi Xuseen Mariya. Wararka aan idin haynana waxa ugu daroon madaxweynaha dawladda ku meel gaarka mudane Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo dhammaanba ugu hambaliyay ummadda Soomaaliyeed gabi ahaan meel kasto ay joogaan caalamka waa wadanka iyo dibadaba sanad guradii 52 ee ka soo wareegatay maalintii xorriyadda wadanka Soomaaliya iyo madaxweynaha dawladda ku meel gaarka iyo wafdi uu hogaaminayo oo baxay caasimadda wadanka Ethiopia ee magaalada Addis Ababa iyo golaha wasiirada xukuumadda ku meel gaarka oo maanta shir ku yeeshay shirkaas oo ku saabsanaa umuraha ammaanka wadanka Soomaaliya iyo waliba ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo ugu baaqay idil ahaan shacabka Soomaaliyeed inay isaga guuraan dhammaan xiriyaha amaba goobihii ay ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed lahaayeen wararka caalamka aan idin haynana waxa kamid ah wadanka Syria oo sheegay dhawaan diyaaradii wadanka Turkiga ee ay soo rideen isla markaana uga digay wadanka Turkiga iyo xulufadiisa NATO in aysan wax argudasho amaba talaabo umurta ku saabsan aysan ka qaadi karin iyo waliba ra'iisul wasaarihii hore ee wadanka Liibiya al-Baghdadi Ali Mahmoudi oo maanta dib isaga oo jeebaysan loogu celiyay wadanka Liibiya iyo dhacdada caalamka cajiibkeen maanta idin haynana waxay tahay saxafi kamida saxafiyiinta caalamka oo ku sugan wadanka South Korea saxafigaas oo aan ahayn saxafi caadi ah saxafi indhala oo markii ugu horeysay akhriyay wararkii caalamka ee wadanka South Korea ama Koonfurta Korea intaasi waa warkii kooban haatanse isagii fidsan